gudoomiye ku-xigeenka ONLF Cadaani Hirmooge oo la soo xiriiray VOA-da ayaa waxa uu sheegay in weeraro culus ay ku qaadeen ciidamada Itoobiya ee aaga fiiq kuwaasi oo khasaaro badan geystay. haddaba Cali Cabdi Xaraare oo khadka taleefanka ee satellite-ka ee loo yaqaan Turayaha ayaa waxa uu ugu horeyntii ku weydiiyay gudoomiye ku-xigeenka meesha uu waqti xaadirkan joogo. waxaan kala hadlayaa meel magaalada fiiq aan ka fogeyn oo 12 kilomitir u jirta waa bartaan dagaalka ka hageynay weeye marka gobolka Nabad xarunta gobolka Nabad weeye magaalada fiiq sideedaba magaalada Harna waxay ka fogtahay 120 kilomitir bay koonfur ka jirtaa. marka dagaalka goorma bilowday? dagaalka afartii subaxnimo saacada geeska Afrika. dhulka la qabsateen marka waa dhul intee leeg? dhulkan qabsanay waa dhul ballaaran galbeedka gobolka Jarar oo xaruntiisu tahay magaalada Dhagaxmadow gacantanada ku jira wixii taga faafan ama taga Jarareedka galbeed oo ah galbeedka gobolka Jarareed iyo bariga waqooyiga iyo galbeedka gobolka maxaa Nabad intiisa badan gacantan ku haynaa dagaalo sifaysa oo yar baa xagga hadda fiiq iyo soo socda dhinaca magaalada Baabil iyo Harar. marka dhulka qabsateen ma xerooyin ba mise waa degmooyin? waxay isugu jiraan degmooyin iyo xeriyo iyo baro dagaal iyo baro fahan oo cadowga marka degmooyin way ku jiraan oo maamul ahaan degmo ah tuulooyin waaweyn iyo saldhigyo ciidan inta way isugu jiraan. ciidamada Itoobiya Cadaani khasaare intee leeg baad gaarsiiseen? khasaaraha saldhigga bariga galbeedka maxaa magaalada galbeedka ku yaala galbeedka Jarar wuxuu saldhig u ahaa ciidan qiyaastii guud ah 3 urur baa deganaa 3 urur wax dhintay iyo wax la hayo weeye qalabkooda iyo saldhigoodina waa lala wareegay goobtina gacanta ku hayna aagan u dhaxeeya Baabil iyo Fiiq waxaa deganaa 2 urur iyo 2 horimood iyagana waa baabiinay marka ciidankooda ilaa waxa weeyaan 5 urur iyo 2 horimood weeye ciidanka cadow ka baabaa. tirada inta aad disheen waa mise marka? tirada kama dambaysa ma sheegi karo laakiin 3 urur waxoogaa maxaabiista laga hayaa tirada waan koobi doonaa oo dhul ballaaran bay kala deganaayeen. haddana idinka khasaaro intee leeg baa idin gaaray? khasaaro aad nooga yaabiyo aad u yar baa yaa na gaaray maxaa yeelay goor sahan aad u fiican waa jiray goor aad u fiican maxaa goor xilli muwaafaqaysan uu ahaa dagaalku. maxaa idinka dhintay maxaa idinka dhaawacmay? goobaha gobol galbeedka gobolka Jarrada hadda yaa qaar shahaado la soo sheegay dhaawac waa waxoogaa laakiin shahaadadu waa 5 weeye. Cadaani hore dagaaladina waxay u ahaayeen kuwa ku dhufo ka dhaqaaqa hadda se waxaad sheegaysaa weeraro toos oo aad ku qaadeen ciidamo taangiyo iyo dibabaad wata oo lixaad iyo hubba idinka xoog weyn sidee markaa idinku suurta gashay inaad weeraro intaa leeg iyo guulaha sheegaysid aad gaadhaan muddo kooban? horta sideedaba dagaalkii ku dhufo ka dhaqaaqa wuxuu isbedelay 3 sano ka hor 2005 wixii ka dambeeyay dagaalkana uu dagaal fudud ma ahayn hadduu xataa ahaa dagaal dhuumaalaysi culus buu ahaa ma ahayn dagaalkii fududaa xarbi xisaabaadka ama guulida warfare uu ka gudbay sanadkii u dambeeyayna waad ogtahay dagaalo waaweyn oo kumaan ciidan ay sardiyeen baana dhexmaray cadowga marka ciidanka cadowgu moral xun yahay qalabkiisa soo isticmaalin baan dagaalka waa afjaraa hadda waxyaabaha ilaahay maarta guushan uu siiyey guulaysigu asagoon isticmaalin qalabkiisii baan ka qabanay oo saacado yar sidaanada dagaalka iyagu aad buu dhaqso badan yahay dalka iyo deegaanka iyo dadkana annaga leh waxyaabo badan baa ka heelinaya. laakiin marka la eego jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya ciidamadeeda marka la isbarbar dhigo waxa soo baxaya in leelinka tayo iyo tirada badan yahay. waxaa soo baxaya laakiin anagu inaan ka moral fiican nahay qadiyadana inay xaq tahay iyaguna ay baadil yihiin in dalka aan leenahay iyaguna dool ku yihiin dadku kaayagii iyaguna cadowgiisi yihiin. hadda xilligan dagaalama socdaan way socdaan hadda idinku sidiinaba xagga taageerada ka heshaan ciidan? taageerada ugu badan waxaan ka helaa cadowga iyo qalabkiisa taageerada labaad shacabka ayaan ka helaa oo xagga dhaqaalaha iyo qalabka uu leeyahay shacabka iyagu ogtahay ilaa 7-7kii 64 laga soo bilaabo dalka iyagu wuxuu ahaa goob dagaal waxaan Itoobiya kula dirray haynaa. maalmahan xasilooni iyo deganaansho ayaa dhulka ka jirtay maxaa keenay dagaalkan maanta iyo weerarkan aad qaadeen waa maxay sababtu? ma dhicin deganaansho inuu dhaco 2005 wixii ka dambeeyay saacad iyo daqiiqad aan Itoobiya ciidankeeda iyo ciidanka xoreynta waddanka xoreynta aynu sardiin ma jirin toddobaadkii dhawaa dagaalo aad u kulul baa ka dhacay gobolka Doolo hareeraha Wardheer welina way ka socdaan dagaalada waa kuwii caadiga ah ee isku horfadhinay marka goormay meeshaasi nasatay waa waxa muxuu ahaayeen xaqiiqada ka fog aan u gudubnay marxalad cusub oo marxaladii xoreynta maraynaa dagaalkii xoreynta bilowday marka inaan magaalooyin waaweyn qabanaan doonaa iyo xarumo goboleed arrintaana way dhacaysaa insha Allah
يعني مرة waan filaynaa inkastoo arrimaha militariga aan laga sii hordegin. haddaan iyo dagaalkan inteen leeg baad sii wadaysaan markaad eegtid awoodiina dagaalkan muddo dheer baan sii wadi karraa maxaa yeelay dagaalka si laabla kaca uma dhicin 14 sano dagaalamayay 3 sano horeysay wejiga ku socday 3 soo socotana waa 3 taxriirkay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo la soo xiriiray VOA-da haddaba waxay noo suurto gashay sidoo kale inaanu iyaguna dhinacoodan wax ka weydiino arrinta waa ismaamulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar oo khadka telefoonka ee magaalada Ethiopia aan kula xiriiray ayaan bal marka hore waxaan weydiiyay in ururka ONLF sida ay sheegayaan in ay ku qaadeen xerooyin military oo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia walaal arrintaas waxba kama jiraan waa arrin aan sal iyo raad lahayn oo xaqiiqada ka fog waxa weeyaan walaal ururka argagixisada ah ama dawladda argagixisada ee shacbiga iyo ururkan UDO si ay u xisaab xidhaan hantida ay mataqaanaa ka soo qaataan ururada argagixisada ayaa waxa weeyaan beeno iyo dacaayad fara badan bay fidinayaan wax ka jira ma jiro ciidanka Ethiopia hal daqiiqad inay hor istaagi kareenin caalamka mataqaanaa markhaatiga hal daqiiqo iska daa meel ay joogaan inay yimaadaan balse laakiin walaal waxaa jirta shacabka ama qabaa'ilada dawladda deegaanka Soomaalida dega ayay waxa weeyaan markasta laayaan hadda shalay u dambeysay tuulada Shinile ama Dunduma loo yaqaano agteeda ayay ku dileen 3 nin oo waxa kamid ah Khaliif Rashid oo xoolo dhaqato ah ina Cabdullaahi Cali Cabdi Cumar waa dad la yaqaano xoolo dhaqato waxa dagaal ka dhacayna walaal geel ay lahaayeen iyo hanti ay lahaayeen ayay dhaceen weerar bay ku soo qaadeen nimankana waa istifaaceen wax dawladda shaqo ku lahayn ma jirin shacabkaas iyo waxa isdagaalaya ururka UDO shacabkuna wuxuu ka dilay halkaas 9 marka waxaan dhihi karaa waxa ay sheeganayaan wax ka jira ma jiro waxay sameynayaan intay cajilad soo qaadaan dad iyo kamidana ay dhar u geliyaan tuuta ayay waxay dhihi waan qabanay sidan baan sameynay si ay yani ugu xisaab xidhaan ururada argagixisada lacag uga qaataan iyaga iska duubi iyaga dhexdooda intay dhar isu geliyaan oo ay xabada isku ridaan bay cajilad iska duubi taasi ma taqaana marka caalamka yeedhihi waxa weeyaan saasaan sameynay xagga ma sameynay laakiin Cabdi Maxamed Cumar ma arrin la qarin karaa mar haday leeyihiin deegaano fara badan oo ku yaala kilinka shanaad ayaanu gacanta ku dhignay oo dhul ballaaran inay qabseen bay sheegayaan sida galbeedka gobolka Jarar xaruntiisa Dhagaxmadow meelo badan bay sheegayaan marka intaasoo dhan waxa la leeyahay hadda dadka ay dhageysanayaan qosdin baan u malayn kollay waxa way awood wax ku qabtaan iska daayay waxa weeyaan waa ogtahay hadda ka hor cadaaniga laftiisa daqiiqado ku baxsaday waxa weeyaan dooni bad ka raacay markii nuur sooyaan la qabanayay wuxuu xidhay mataqaanaa jilbaab buu xidhay waa cadaani mataqaanaa galeeda jilbaab buu xidhay dumar buu iska dhigay saasoo ku baxay awoodda mataqaanaa uu sheeganayaan maxaa dharka haweenka u gelinaya marka waxa mataqaanaa la qabanay haday ileeyihiin laakiin anagu taa wararka ma hayno Cabdi Maxamed Cumar Cadaani oo VOA-da wareysatay ugu dhiisay goor dhaweed waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay xarunta gobolka Nogoob magaalada Fiiq inuu joogo marka ma waxaad leedahay waxa uu sheegay deegaan beera oo casmar u jooga Cadaani casmar u jooga waxaana markii Cabdinuur Saaloog soo taagay ama BBC laga sheegay jeclay Cabdinuur Sooyaan oo golo dhaxaa iyo xubin kale isna golo dhaxaa ka saddexaad wuxuu ahaa ninka la yiraahdo waxa weeyaan Cadaani sheeganaya oo hore hantidii deegaanka u dhacay marka hadda waxa weeyaan markii la qabanay labadan waxa la ogsoon yahay inuu iska ruux intuu guri galay inuu isaga oo dhar dumar xiran u soo baxay marka waxaan dhihi karaa ninkaas wuxuu joogaa casmara mana dhig awood ku soo gal halkana ma laha kaliya ku soo galana ma laha balse laakiin walaal hadii beel qabiil maalin guur la yiraaho oo waxa weeyaan kamida qabaa'ilada degan si ay xoolo dhaqatadooda iyo hantidooda u ilaaliyaan gudcada huraysa markay soo weerarto haday xabad ku ridaan oo iska difaacaan oo la fiinay mataqaanaa sheegato ama ururka UDO uu sheegtay waxaan meel baan weerarnay dhulkan waa la yaqaanaa waxay qabsan karaan iska daayay maba hadli karaanba waxa weeyaan meel ay ka jiraan ma jiraanba waxaan dhihi karaa marka ma jira wax dagaal oo maalmahan ka dhacay deegaanadaasi shacabka dawladda Soomaalida hadda waxa weeyaan kullayda waa inay been tahay shacabka oo markhaatiga waxa meel ay qabsan karaan awood ay qabsan karaan maxaa waxa weey mataqaanaa casmar ku ururiyay wax qabsan karaan waxa weeyaan hal meel hatuule yar oo mataqaanaa leeyihiin maba yani waxa weey mataqaanaa waa dawladda shacbiga oo ku caan baxay dictatornimo iyo propaganda khiyaawad ay isla barteen oo lacag laga qaato waxa weeyaan xisaab xid waxani waa waxa weey mataqaanaa lacagihii way xisaab xidayaan ma aha walaal caashay waxa weeyaan saasaan yani laga sheegay VOA kaliya bay wada leeyihiin ee wax email gaarsan maxaa waxa weey mataqaanaa ilaa hadda ay
meesha ay sheeganayaan maxaa loo arki lahayaa indhahaaga kugu tusi karaa hadda daqiiqada waxaan la xidhiidhiyay mataqaanaa waxa weeyaan dhagax madow ma jirto marka waxaan dhihi karaa dad shacaba oo waxa weeyaan geelooda dhaqanaya ayay awrta iyo waxa weeyaan waxa gadniishaha u gala dhacayaan halkaasi mataqaanaa arrintuna ka dhacaysa la isku dilaya kadib ciidamadu halkaasay ku iman karaan oo igu soo caawini laakiin marka hore waxa isku dhacaya waxa weeye mataqaanaa waa qabaa'ilada kaasi waxa uu ahaa cabdi maxamuud cumar madaxa saadka ismaamulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia oo khadka taleefanka goor dhaweyd iigu warramay isagoo jooga wadanka Ethiopia